waana markii ugu horeysay video YouTube aan ku duubayo dalka Germany. waxaan ahaa oo Soomaalida oo dhan laga wada yaqaan oo wadanka ku kala kaxsan yahay waay dadyo inaan ka soo tago aan inta imaado wala sabab badan ayaa jiraan oo igu kalifay. waxaa jiray habeen anagoo barnaamij duubayno inay noo imaadaan rag ciidan ah oo aan si fiican aan isku aqoonin. marka waxaa jirtay gabar aniga si Ingiriiska ku nool oo magaceeda aan sheego waa iska cafi oo reer waxay u samaysay iyo waxay iga cunto waa iska cafiyay. gabadhaas ayaa waxaan isku imaanay dalka Itoobiya telefoon ka wada hadalnay hal wiil aan u dhaxeeyay oo YouTube-kayga ii hayay kadib markaan Itoobiya isugu imaanay barnaamij waxaan sameynay guur ah. sheekada waxaan u baahanahay inaad mid aad noo keento Belarus iyo South Korea hadda waxaad joogtaa Sacuudi Carabiya waxaa la dhacaysa laakiin waxaa jiro xogaa meel wax lagu dhiibo oo lagu basalinayo. marka wixii aan dhiibay waa lii baseeyay adiga masraxa imaadeen masraxa hal habeen seexday kadib masraxa ka soo duulay waxaa imaaday dalka Russia markaa imaaday waxaa xirmay Finland uu soo qaaday meel waxaa la keenay oo keen ah waxaa la dhahay meesha waatana waa joogtaa meeshan lagu dhawo 12 kilomitir dhigan aniga ninka gaarigooda nin Arab ah iyo labada qof oo lagu soo daray oo Arab ah bas soo socono عضو على في الله باسبوركيga maadaama baasaboorkii uu qoyay 2012 sawirkiisa uu ahaa gar yaraan lahaa markaas garweyna lahaa shaqada meesha ka imaanay inta soo jirtay garkii xukuumadda Tuuniska Kenya shaqsiga isbeddelay wajigaaga aniga aad u rafaasana marka way yaabay dhaawac intii ka yaalay baasaboorkii fiirnaa way iimaanay fiirnayaan adiga markii rafaad dheer kadib warqada waxaan ku badbaaday marka oo waxa ku jirtay boorsadeeda oo ay isoo qoreen kuwan Belarus hadii lacala lagu adkeeyo inuu warqadaas dhiibay magarashka ka yimaadeen warqadaas markaan dhiibay ku badbaaday su'aal waxay weydiisay ajiiba YouTube waxa isticmaalaya muddo 2 sano ah oo maleyna inta soo baxay sanadkan oo soo socda iska dhaaf 2 sano isticmaalay 2 sano YouTube waxaan ka sameeyay da ku sheegnaa good morning good abi يلا ونحسن جود ضغطا هوين ونحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسولو فينوس بودكاست ما أنت بودكاست جينا وحي نو مرتي علوس ونبهني شرحات بدن وحويا بابا جي وعنها بابا سولو المقول سلامة يا وراك يا عامر واندو هاي وانا مركي ugu horeysay aan ka soo muuqanayo channel kaaga waana markii ugu horeysay video YouTube aan ku duubayo dalka Germany aad baan ugu faraxsanahay waan dhawahay soo dhawaadayna sharafay tahay marka koobaad waan kaaga mahadnaqayaa inaad aqbashay inaad noqoto muuqaalkii ugu horeeyay ku duubto YouTube na noqdo Finance Podcast-geena keena noqon doona hada muuqaalkii ugu horeeyay ee kanaalka isagana la soo galiyo uu noqon doono oo ku dhashay Babaji first one podcast ugu horeeyay la soo galiyo buu noqon doona insha Allah rajayna in Babaji in ismuujin doonaan maadaama 6 bilood aan ka baqlay YouTube-ka oo aad hadda igu aragtaan in aad kulay inaan aad si fiican igala socon doontaan kanoo kaliya maaha waxyaabo badan oo soo socdaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulay maanta su'aalo badan oo ku soo diyaariyay wax badan oo hadlaynay su'aalaha ku diin waxay Babaji maanta adigoo caan ah oo Soomaalida oo dhan laga wada yaqaan oo wadanka ku kala kaxsan yahay waay badiro maanta horta su'aashaas niid ahaan aniga way ugu taagneed dad far badan way i weydiiyeen laakiin kaga ma jawaabin runtii magaalada Muqdisho waa run sida aad sheegtay dadka ay u shidneed loo imaan jiray qof hadii qurba ka imaanayo oo jeclaa inuu la kulmo studio-gayga imaado asxaab far badan ay wada joogtay waliba hal iyo laba aan dhihi karin inaan ka soo tago aan inta imaado wala sabab badan ayaa jiraan oo igu kalifay waxa kamid ah markii tusaalahan aad tahay qof YouTuber ah wadankan uusan ahayn wadan sharci leh oo dadka sharciga uusan kala celinaynin dhibaatada aad u far badan tahay waxaa jiray habeen anagoo barnaamij duubayno inay noo imaadaan rag ciidan ah oo aan si fiican aan isku aqoonin oo magacaas oo kaliya iyo hawadaas la iska arkay inay guriga noogu soo galaan anagoo muuqaal noo socdo kaamirada noo daaran tahay inay awood noo sheegteen kaamiradii ay naga damiyeen shaqadii ay naga joojiyeen ilaa lacag aan ka siinana in YouTube-kii aan wax ku duuban weyno aniga gurigaan deganaa waxaan ka dhiibay kilo $600 korontadii aan bixinaynay waxaan ku shaqeysanaynaa wadankeena asoo dhibaato badan ay ka jirto waxaan ka soo saarnay maciishadii wixii aan ku noolaan lahayn haddana hadii lagu daro in lacag baad ah laga qaado dhibaatada ay leedahay xitaa hadii aad baxdo isku daydo inaad dacweyso
waxa macquul ah haye inta lagu qoslo beri in marka laga toogto waa sababta igu kaliftay horta marka hore inaan wadankii ka soo baxo okay tan labaad oo ah waxyaabaha haddana igu sii kalifayo markaan arkaayo marxaladaas oo jirto haddana aad tahay aabo youtube-ka oo kaliya aan shaqo noqon karin iyo maanta qof oo dhammaystiran oo haddii xitaa even waxaan aalad waaye beritu way xirmi kartaa haddii ay xirmato meel aad kaga baxsan kartid ma lahan taasaan igu kaliftay inaan kasoo baxo wadankii waxa weeyaan kulley saad la socdo waxtay baabad ka dhawaajisay waan garanaynaa waxtay qof bulshadu jeceshahay oo Soomaali oo dhan bay ku xidhan tahay way dhici karaysay fursado kale inaad hesho inaad fiiso ku yimaado waxaad soo martay jidkii taariikhda la wada socday la arkay intaad soo martay safaadkii dhulkii cidladii jaakiyaad soo galaysay maxaa markaa aad ma eegtay inaad wadooyin kale kusoo bixi karayso mise waxaad go'aansatay inaad soo ugu dhaqsaha badan aad muqdisho iyo bulshada ka dhacdo wallahi horta niyow aniga barnaamijkan soo bixitaanka ah intuusan dhicin waxaa jirtay inuu iska taqaana qofka markuu qof caan yahay dad badan la soo xiriiraayo haddana markii xogaa dhalinyaro dhaqaalo lagugu arko qof walba wuxuu ku leeyahay intaa kuu fiican marka waxaa jirtay gabar carigaasi ingiriiska ku nool maraa magaceeda inaan sheego waaba iska cafiyey already waxay ugu samaysay iyo waxay iga cuntay waa iska cafiyey gabadhaas ayaa waxaan isugu imaanay dalka Ethiopia taleefanka wada hadalnay hal wiil noo dhexeeyay oo youtube-kayga ii hayay kadib markaan Ethiopia isugu imaanay barnaamij waxaan sameynay oo guur ah oo sawirada qaar kamid ah aan haayo oo aan sameynay adiga waxaan u hormariyay lacag $5,000 waxaan ku heshiinay marka hore in $25,000 barnaamijka ay ugu dhameyso si isximbaar ah ay ugu geyso dalka Ingiriiska marka gabadhii markaan lacagtiisii kadib ay muddo aamusneed oo hadda taleefanka waxaysan qabanaynin marna ay iga qabanaysaa ilaa shaqan ku jira waqtigan waxaa dhacday aniga in safar aan soo galo oo dalka Saudi Arabia markaa imaadan la ii sheegay gabadhii inay guursatay nin kale ay guursatay 5 kun gacan kuma haayo arrintaasana igu dhacday marka waxaa jirtay haddana barnaamij kale oo aan sameeyay oo qof caan aan la xiriiray mar raba magaciisa inaan sheego already markaan Sacuudiga tagay aan iska cafiyay xaramka anigoo ku jiro waxaan u cafiyaa waxay tahay cafiska badan hawaaye waa lagu liibaanaa marka qof kasta anigoo meel ku xayiran intaan la hadlay inuu ilaahay baasaboor qof ku eegan ku keenaa waa ina lacag isiisaa oo saan ku aqaano kala u aqaanaa hebel aan dhihi karaa laakiin ceebta haddii aad asturto adigana taada ilaahay asturaayo marka inaan lacagtii siiyey asagana baasaboorkii uusan ii keenin iska kee daba mariyey weliba anigoo meel waxaan ku jiray xataa go'doon ah marka isku daygaas waa sameeyey inay khasaare iga soo gaarto mooye wax faa'iido ahna waa ka waaye Soomaalida waxay dhahdaa ninka dabka ku gubto dambasta xataa wuxuu u maleeyaa dib inay tahay uu ka cabsanaya markaan arkay marxaladaas waxaa igu dhalisay marka in aan anigana bal wadooyin kale aan raadiyo oo ii fudud waan ku imaan karo kulli way jirtaa bulsho badan oo dhalinyarteena oo wadankii joogta oo rabta inay qurbaa imato sababaha adiga ku kalifinaad wadankii ka soo baxday noloshaada adigoo abaad ma fudud oo kale wadi ka sheekeynay dhibta ku imatay ma dhici kartaa ma aragtay dad ma la soo kulantay saadaas oo kale ku dhaceen ama intay dad lacag siiyeen sidoo kale loo jaray ama gabadha macquul may tahay inuu guurkeeguba oo hadda hirgelay mise in lagu sameeyay sida adiga ay ku gasho kale mata waxa ay dadku ka shaqaystaan boqolaal qof waa arkay oo qasarada soo kale ay ku dhacday inta lacag laga cunay horta waxa qasab ah mar walba oo la sameeynayo laba qof inay heshiiyaan oo barnaamij la sameeynayo haddii aan lacagta la kala saxanin tan aniga igu dhacday iyo dad badan oo aan aqaan mid ku dhacdo kala ku dhacayso sababta ku sheegayo haddii uusan jirin qof dhinacaas ka socdo iyo dhinacaan ka socdo aysan wada hadlin oo labada family aan la wada aqoonin waxa iman karto qofkaas maadaama qorba jooga adiga ma gaaraysid wuxuu rabo sameyn karaa way dhacday dhowr qof ku dhacdaan arkay taas taa maxaa kala taa waxaan arkay anigoo Belarus joogo waa taqaan Belarus qofka markuu joogo safar waxaa jira marka la soo baxo niman Carab sheekada waxaan u baahanahay inaad mid aad noo keento Belarus ee sad ku imatay hadda waxaad joogtaa Saudi Arabia waxa laga dhacaysan ku sheega calashan in ay sabab u tahay calashan qof walba oo binaadan ah in maalin uu ku dhacay qasaradaas aad iyo aad hadii uusan ka fiirsanin inuu qofkii la khiyaami karayo hadda waxaan rabnaa adoo wadankii joogaa sabab ugu dhacay Sacuudiga baad imatay qofaas garanaysa hadana programka ku dhacay markaad Sacuudiga joogtay see ku dhalatay inaad mishinkii ka soo baxdo Sacuudiga ilaa Yurub soo gasho jidkaaga hor Sacuudi qof walba sidoo og yahay waxa jirto visa cimro ah oo la sameeyo oo qofku soo diraayo oo adiga lacag dhiibaysid fiisadii cimradii markii aan helay waa 3 bilood marka cimraysato shirkadda adiga ku keento waxa la leeyahay qofka haddii uu cimraysto adiga mas'uul ma ka tahay inuu dib u laabanayo
hadduusan qofka laabanin shirkadda waxaa lagu soo dalaci doonaa lacag gaaraysa 40,000 ilaa iyo 25,000 meelahaas oo kale lagu soo dalacaa si aysan micnaha ugu fiirsato qofka ay keenayso inuu laaban karo mar kale aysan u dhicin waayahay marka anigoo meeshii joogo oo soo cimreeyey waxaa la ii keenay visa Shanghai ah taasna waa igu dhacay lacagaan dhiibay visa Shanghai dii sawirkeeda la soo diray ilaa hadda mobilkayga ku jirtaa waxaa lagaga dhigay wixii in la diyaariyey oo kaliya ay dhiman tahay in boosta la soo dhigo wiil waxaa jira Yusuf Axmed la dhahayo oo company la asagana Sacuudi Arabiya oo meel xawaaladi wax leh aniga wiilkii u sheegay wuxuu dhahay okay waa dii lagu soo diray maalin walba waxaan tagi jirnay DHL si aan u soo fiirin visada macnaha qof oo sida dameer qofku ugu taagan yahay oo kale asugayso rajeynaysa wax wala soo qaaday lagu sawiray wax sidoo eeg aad soo qaadanayso waqtigeedii marka visadina way imaan weysay qofkii lacagtii qaatay markii la wacay lambarkii uu dinsan yahay waxa noo sheegay waddan inuu Faransa aadaybo kabacdi hadii tolxad ku aansatay kabacdi haddana waxa ila soo xiriiray wiil saaxiibanahay dalka Mareykanka ku jooga oo u sheegay inay jirto visa Russia oo hadan Russia imaada ay furan tahay markaad marxalad ku jirto marxalad walbaba qofka markuu ku sugan yahay xaalad xun oo galo waxa la yiri qofka markuu boqol qof u taliso qofka soo wuxuu ku leeyahay ku fiican qofka soo wuxuu ku leeyahay ku fiican qofka soo wuxuu ku leeyahay ku fiican horunta aniga YouTube ii shidan magaalo ii shidan meel ii fiican aan joogay laakiin waqti xaadirkaas oo marba ay niyad aaday in safar galo dhacdooyin fara badan ay ugu dhaceen marka fiisidan waa la ii keen gacanta liiga saaray tan Russia marxaladii hore tan way ka duwan tahay hadda fiisidan xogaa khibrad inaan leeyahay oo ekaatay marka waqtigii waxa la gaaray Sacuudi aan ka soo bixi lahaa Sacuudi aan ka soo baxay Uganda imaaday Uganda markii laga soo baxayna way adag tahay fiisada Russia Uganda qof aan deganaanshihiisa kama soo bixi karo laakiin waxa jiro xogaa meel wax lagu dhiibo oo lagu basarinaayo marka wixii aan dhiibay waa lii basariyay adiga Masar imaaday Masar hal habeen seexday kadib Masar ka soo duulay waxa imaaday dalka Russia marka imaaday waxa xirmatay Finland marka xogaa way isi macaatay dad ay soo wacay babji Euro soo galay macna YouTube oo qaarada soo duubeen hada marka xogaa inta imaada lagu dhahay magacana waa tahay horo ka noqday wax fiican ma aha islahay marka meel laga laami karo hada badan ay soo wacay marka hada soo baxday inta ay imaadid amal okay way kadib waxaan isku dayay marka inaan dhaqaaq yar sameeyo fiisadii hal bil ay ahayd oo Russia waxa iga baxday adiga almost $4,000 ay iga baxday ticketka 2,000 oo airportka laga qaadanayo qof ajiro airportka bixinaad qofka isku imaana lagu dhahaa airportka ba bixisid laakiin kulay waa wax dadka iska sameysteen waay waa ka soo baxay waxa imaaday Belarusia gaari ku imaaday gaariga Belarusia ku keenayo waa $350 dhiibay hatta rabin inaad lugtaada dhulka dhigin waay maadaama aniga qof aan socon karin aan ahayna $350 inaan dhiibo ku qasbanaa kadib Belarusia marka imaaday hay'adaha la hadlay barnaamij hay'adaha uu ii socday anigoo hay'adaha ay ii fadhiyaan oo jawaabta kaliya aan sugayo marka hay'adaha maxay ku siinayeen inay Yurub hay'adaha macnaha inay camp ku geeyaan oo Belarusia camp ku yaalo campkaas kadib laga soo qaado oo Poland lagu keeno just waa sidan ku imaaday laakiin caqabada ka horeysayba marka anigoo meesha ay ii maraysa xalkii ii fadhiyo dhalinyarada waa iska taqaanaanayo waxa uu gaariya jiro ku qaadayo hadii lagu geeyo amal birta gaalada ay ku arkaan lugtan Afrika waxa kaga soo qaban weysay gaalada hadii arkaan waxa macquul ah dad in laga furabo meena wax yar oo easy ayaa lagu soo waraya hadda waxaan ka sheekeynayo ma aha wax qof iiga sheekeeyay waa wax aniga aan arkay dadka laakiin markii loo sheegayo waxa macquul ah inaysan aaminin ma ogtahay marka biyahan gacanta ku haysato inaad u baahan tahay inaad u baahnay waxa fahmi kartaa markaad gacanta ku haysato sax marka gaariga soo raacay $500 dhiibay gaariga lagu soo qaaday meel waxa la keenay oo keen ah waxa la dhahay meesha waatana waa joogtaa meesha ma badhawo 12 kilomitir dhiman aniga iyo ninka gaariga wada nin Arab ah iyo labada qof oo lagu soo daray Arab ah bas asla socono adiga waxay ahayd 12 habeenimo adii 6 saac oo kale ahayd meesha markii la keenay gaari kala hadana imaaday gaariga imaaday dhalinyarada saaran hadii aan la kulmi lahayn maanta horta ma fadhin lahayn oo maleena marka dhalinyarada Soomaali ba saaran dhalinyarada Soomaaliyeed markay arkeen way babjeed waxa ku keenay inuu waa fududana gaariga lagu soo qaado wali keenay birtana waa tan warbeena lagu sheegay 12 kilomitir dhiman location ka qaldamay anaga intaan la wada keenay in la socdo la rabaa in la lugeeyo meesha lagu lugeeyo waxa waaye meel adiga keen ah oo joog ah godobta ku galayso
barafkii hore oo da'ay biyihii meeshu fadhiistay adiga dhiiqo rafaad fara badan u ahaa marka laba mar markaan socday waa dhacay ina wal kala ordaa waxaan laga cararaa ciidanka Belarusia laga cararaa okay hadday meesha imaadaan iyota iyasar ugu sutura hadday ku qaniinaan dhibaato leh waaday meesha meel isbitaalka kama dhawo markaan dhacay wiil Soomaali istaagay Maxamuud dalka Jarmalka ku nool yahay inta ka salaama saaxiib abaalkaaga waxa waa ma iloobi karo wiilka istaagay asiga lagu qeynaa maxaa ku istaajiyay soo orod macquul ma wada si ugu tagaa ninkan naafa ah waay wiilka dusha igu soo qaaday qof bini aadan oo dushiisa saaran tahay oo asiga kula soconayo meeshii la ordaayo mar ila dhacayo mar ila istaagayo adiga waa dareemi kartaa marxaladaas adiga waaga duurka dhexdiisa noogu bariyay wada meel ay naga jirto ma naqaano mobilkii ma shaqeynayo internetkii ma lahan marba in dhaco orda mar ila aan orda marba location meel oo wada laakiin wax saxan ma hayno marka location ka waxaad ka eeganaysaa mobilka laga eega asaga hay ninka arta hay anaga ma hayno anaga asaga meesha uu cararay loo orda markaas meel iska fadhiisanay raashinkii waa laga kala orday boorso lama qaadi karin ninka doonay qaadayo anigii boorsan wataa oo waxaan ku suurtay raashin inta mees joogina isticmaalo teedo waa la tuuray waxa ku jira power bank igu jiray lacag yar hadii even la laabanayo igu jirtay waa la tuuraa macnaha qof la hadli karta ma lahan meesha waa la kala cararaa asaga boorsiis waa tuur maadaama anigii qaadayo labadii culus isku qaadi karo adiga dhalinyaro marba qof ay ximbaarayay marba qof ay qaadayay oo dambe waxaa imaanay birtii adiga laba maalmood aan ku jirnay oo la cunaa aysan jirin mar carabtii nagu qaylinayo mar waxa la raadinayo meeshii laga bixi lahaa adiga jidka naga soo dhawo ka dambe waxaa imaanay 330 iyo waxaa imaanay 5 aan imaanay waa meesha istaagi doono dhalinyarada marka isla habeenkii birta loo jaray marka meesha waxay ku fiican tahay qofka hadii lugihiisa uu qabo oo imaado bira lagu jaraa waxa uu ka boodaa qofkii la soo qabto waa nasiibkiisa laakiin nafta orday kugu aamintayo orada meesha looga baxaa anigii ma ordi kari waxaan ku qasbanaada marka meesha inaan joogo marka inta ay soo qaadayeen inagii Maxamuud halkaas kala hadlay ninkii ku caawin okay oo imaado wuxuu dhahtay even meeshaan bir ku dhignaan lahayn waa kula carara ila location waxaan ku geelahaa u dhahay hay'adda ay joogto ilaa 5 kilomitir ama markii la cararo hay'adda joogto hay'adda la wacda hay'adda ku imanayso ku qaadeen laakiin meeshaan bir laga dhaxbaxa jaranjara la saarna jaranjara laga booda kadib duurka lagu cararaa mina wax dhow ma aha marka duurka dadku lagu dhiman karaa duurka halis lagu dhiman karaa inta soconay waxaan la sheegay gabar iyo wiil meesha ku dhintay meesha ku dhintay cid qaadaysa ma lahan bahrale meesha ku cunayo marka waxa laga ordayaa ciidanka Belarus laga cararaa hadda marka kuwa Poland ku qabtaan mi ku celinayaan mise ku soo qaadeen Poland ma gali karaba marka hore waa in birtaas la dhaafaa xuduudda ku xiran aniga marka meesha tagay adiga hal maalin oo kale waa iska xanuunsaday gabadhan soo dhahay hadda Belarus ku laabatay inta ka salaama ida kaniin wada kaniiniga isiisay habeenkii meesha iska saxday dib ay noo shiday wax la cuna ma lahan biyaha waxa laga soo qaadaa meel war ah oo roob meel u fadhiistay waa biyaha laga soo qaadayo iyaga biyo kuma siinayaan kuwa Poland anagoo sas ku jirno oo teendha yar iska sameysano roobka kaleeno kuwa Belarus ay imaanayaan teendhada intay jibiyaan ee dab ku shidaan ay gubayaan waxay ku leeyihiin ordaha gala Poland gadaal xataa looma laaban karo waa laabana hadda ku dilayaan hadda dhahda Poland aadana way ku dhaafay ku leeyahay ordaha inta ku jeeda gal nin ciidan inta taagan oo wadankiisa difaacanayo ninkan ku soo diray ma geli kartid waa sunay kugu shubayaan dadda waxay ibaday aniga meesha iska joogo hay'adii aan la hadlo muuqaala aan u duubo aan dhameystaan jooga qof naafa ahay hay'adii isku daydana ay imaado ciidankii ay celiyaan aniga marka marxaladda ay fiican tahay hay'adii ay xogaa noo soo jawaabayso aanin Polandis ah nin Maghrib u dhashay hadii Morocco aamin digiliyay meeshii fooda ka dhacday dadkina waa laga raafay maadaama ninkii mindila gelin ninkii oo dhintay adi qof in la soo dhaweysto waa la diiday xitaa anagii in la soo dhaweysto waa la diiday okay kadib waxaa dhacday in aniga go'aan aan qaato idii weyneeday ahayd waa la laabanayay nin oo waxaan la hadlay adiga oo biraha jajaro waxaan dhaniyo aniga hadda birta xataa ii furto oo gudaha igeliso waxa macquul ah day arkaan xoogaa inay qaataan maadaama dhulkooda aan ku jiro hadda laakiin aan joogaan dhahay Poland Belarusia marka hore lacag $1 ah waa inay siisaa $1 aan dhiibay birto ii furo oo igeliyo gudaha markuu igeliyo ciidankii xanaaqsan qof laga dilay naxariis ma sameynayaan sunay ugu shabeen waxay iga tuureen 346 iga tuureen anigoo baa kor wadanin fanaanad kaliya qabo roob da'ayo sun lagu shubay dhulka lagu jiiday hatta muuqaaladeedu way jireen dad ahaayeen YouTube ka xumaanayna soo dhigay ee meesha iga tuureen kadib marka
xogaa meesha iga tuureenna waxay u dhaweed birta xuduuda xogaa waxay isdhamaan maadaama qofkaan socon karin meel u dhow oo kale laami ah dhiga si haddii ciidanka soo maraan ay u qaadaan markaas kadib aan qeyliyey helbi caawiya waa fuuri waa qeyl wax soo maray maraan ugu yaraan meesha waxaan fadhiyey hal saac baro kale kaneecada inaan saan u siibtid maahinay saan haddaa dhaqta ma baxayso iligeyga anaa weligeeda dhiig ma arkin waa weyn tahay jirkii way dhexgeliyey kadib ciidankii aan meesha soo maray ciidankii aan la hadlay marka ciidankii haddii saanoo kale aan u fadhiyo saanoo kale aan u fadhiyo qof fiican oo xayya lagu malaynaa eeyo wataan way ku harantina way ku dilayaan maxaa usoo carartay ku leeyihiin maa noqotid oo gashid marka waa istaagay way arkeen way qaadeen gaariga isaareen waxay igu celiyeen miniski hay-addii fariina ii soo dirtay internet ma leh waxay dhaheen waqtigaaga waa la gaaray soo bax waa inaa imaadaa xirada oo kaamka waa inaa imaadaa qof duur ku jiro oo internet aan haysanin wuxuu cuna aan haysanin rafaadsan internet ma arki karaa markaan miniska ku laabtay internetkii aan shiday aan arkay fariinaan u qoray waxay dhaheen waqtiga waa kaa dhacay xilliga aan ku sugaynay booskaaga qof kale la geliyey wiishka waa igu yeeray marka waxaan ku mintidaa ani baasaboorkaygu ahaa maanta inta ku imaaday dadaa baasaboorkooda iska tuuray oo markii hay-addaas ay la kulmeen dhaheen haddaa baasaboor haysta visa kugu dhufanaynaa si aad Poland u gasho keenso baasaboorkii waaye ani marka baasaboorkii waa ku mintiday xataa markaan gudaha galay dadaa waxay u dhaheen keen baasaboorkaaga saacadeed haddii wiil Jarmal jooga ahaayo saacad oo ultra ah oo dad badan oo YouTube markaa soo duubi jiray ay xirneed marka wiil ahaayo oo Jarmalka joogo marka baasaboorkaaga waxaa isku dadaashay waa ku mintiday lafta Okay. waa ku mintiday aniga ma tuurin okay waayo buumadeedaan gashta bacaan ku xiro wuu qoyay laakiin waa qalajinaya leeyahay macnaa mar walba ma tuureynin okay muxuu kaa caawiyey markaa wuxuu baasaboorka iga caawiyey hay-addii markii aan la hadlay oo ku mitiday oo ku rafaaday waan dhacay marka meelahan jug iga soo gaartay intaan iga madooweed sawira jira xataa waa haya ku tusi doonaa intaasaa iga madoowaatay marka waa u diray waxaan jaranjaraan ka dhacay beenaan u sheegay waxaan maadaama qof naafaayo guri dabaqaan degnaa waa kasoo dhacay jaranjarada inta ku dhusaday adiga waa ku cabaaday 3 beri camal ay meerinayeen magdan waxay dhaheen waa inaa soo baxdaa gobolkaas imaadaa baasaboorkaaga ma haystaa haa waa baasaboorkan ku badbaaday okay baasaboorka sawirkiisa u diray waa tagay magarashkii geeyeen baasaboorka iga qaadeen way xareeyeen kaar yar ay siiyeen oo lagu joogayo 3 bilood iyo waxaan joogay 20 cisho 3 bilood iyo 20 cisho kadib hay-addii Poland ila soo hadashay oo markii hore aan ku caban jiray oo dhihi jiray meeshaasaa imaaday waxayna arkeen fiidiyoogii suntii lagu shiwaayay way iga raali geliyeen adiga gabdho fiican ay igu soo aaday gabdhihii marka waxay dhaheen waxaan kuu soo diri doonaa warqado oo aad saxiixayso waxaan rabnaa inaad samaysato boor oo ku qoran tahay magangeliya inaad weydiisanayso Poland iyo inaad noo soo dirto baasaboorkaaga baasaboorka sawirkiisa u diray warqadihii soo daawacay waa saxiixay sawiraan ka qaado u diray boorka anigoo haysto oo aan sawir iskaga qaaday waa u diray kadib waa baxay magarashka ku laabtay waxaan dhahay hay-ad waxaa jirto Poland ka dhisan oo rabta inay caawiso oo weydiina maxay ka caawinaysaa inta hay-adu ka dhisanta waxaan dhahay marka waxay iga caawinayaan maadaama qof naafa ah qalab ka heli karaa inta qalabka ma helayaan dhahay Belarusia kuma siinayaan wax lacag ah haddii markaad imaado waxaa lagu siin doonaa hal bakeeri hal qaando iyo hal baaquli iyo busto ah hugsanaysid markaa bixis waa laga xisaabinaa haddii hal qaando ay maqan tahay lacagteeda dhiibaysaa iyaga rublo isticmaalaan 20 rubi ama 15 rubi ayaa dhiibaysaa si macnaha loogu soo gado alaabtii adiga aad dhumisay marka waxay siiyeen magarashka waxay siiyeen visa siiyeen baasaboorka ii saareen kadibna waxay siiyeen warqad ay ii qoreen oo ah haddii aan soo marayo xuduuda u dhaxaysa Poland iyo Belarusia waxa ugu adag oo qofka markii baasaboorkiisa xataa uu wato uusan ka bixi karin waxay tahay xadka u dhaxeeya Poland iyo Belarusia oo midda Poland waliba borderka Poland aad u adag yahay Belarusia cid ka bixi karta malahan waxaan sameeyay markay viisada wax dhan ii saareen maalin aan ka soo baxay Isniin ah habeenkii Talaadada waxaan seexday Bristol seexday tariinaan soo raacay kadib gaariga igu soo qaaday 3 saac subaxnimo safka aan galay waxaan soo galay Poland 10 saac habeenimo intaas gaariga saarnaa 4 saacadood waxaa la fiirinayay baasaboorkayga maadaama baasaboorkii uu qoyay 2020 sawirkiisa uu ahaa gar yaraan lahaa markaas gar weyn aan lahaa shakiga meesha ka imaanaa intaad soo jirtay garkii xuquuqda qatimayska jamii shaqsigaaga isku dilay wajigaaga aniga aad u rafaadsanay marka way yaabeen dhaawac intii iga yaalay baasaboorkii fiirinayaan way iimaanay fiirinayaan adiga markii rafaad dheer kadib warqada waxaan ku badbaaday marka oo waxa ku jirtay boorsadeeda oo ay soo qoreen kuwan Belarusia hadii lacag lagu adkeeyo inuu warqadaas dhiibay magarashka ay ka imaadeen warqadaas markaan dhiibay aan ku badbaaday 10 saac ma iideeyeen kadib waxaan imaaday
بولا مركا إمادي والي ودو بيلا ليجي واسحدي صبحي مركان سوكا عي ماشي فرالي قادي يعني باسبوركي أنكو ديبي أو باسبوركي إيجا قادين وإلى حدا بأي هايان كدب ويسوودين waxay keeneen xiriir la yiraahdo biyaal budriski oo inta badan Soomaalida ay imaado marka Soomaalida bash kuma sii hakato markay imaadaan baar ay joogaan way ka baxaan rugtay furanaha marka anigoo meesha adiga waxaan joogay ugu yaraan 20 cisho wax ka yar amalan joogay kadib waxaan qaatay go'aan ah inaan soo baxo oo aan Jarmalka soo galo aniga weligeyna muuqaaladan duubi jirta dib ugu laaban kartaa weligey waxaan ku fikiri jiray aniga inaan Jarmalka imaado hadafkaagu meesha socotay inaad Jarmalka imaatay mana ahayn wax kale حاسة مادام تصير أصلاً يسوع ميلي إن كهش قلب إنها مادام الله لا فاهم كنت خصوصين إن هذا بس كنت أنا قفل بوحي أدرى قانا أنا ما أنت مثلها باهي كلا كوكنتي اسمه لها كلمة مدد وحقيقة إن باكورتا وحكود أموت قصعون كرتو أتكلم شرس يعرف مادام الصومالي أنت أقول بدنا ده يجرم الكل مادام عارف ما ماشي اللي قلتهم يا تاع جرب القصة أوكي تاريخ هذه وحوي أنت أساسا جرب قصة شيء dibaan ugu sii weydiin doonaa Poland iyo Jarmalka saad ku soo gashay waxa weeyaan asxaab badan baad lahayd wadankii dhalin badan oo kugu xirnay team kula shaqeynay teamkii maxaa ku dhacay dabada intaas 6 bilood ka soo maqantay wadankii ku dhawaad sanadkaas wax ma soo gelisid YouTube-ka maxaad ku nooshahay quuda daruurgaagii adigoo ah xaasle family-gii joogan noloshaadii kala sida hadda ku dabartaa horta in la yarzuq ma insha Allah xisaab Allah subhanahu wa ta'ala aadiya waana ayad quraan irsaaqadan waxaa waa iska furanta meesha kale imaanaysa adiga mataqaanid YouTube-ka ka hor aniga qudaaraan gadi jiray waan noolaa kadib waxaan samayn jiray filmaantina waqtiyo gurigeyga waa ka biilan jiray run ahaantii horta YouTube-ka aniga 6 bilood waxa uu soo gelin wallaahi su'aal waxay weydiis cajiiba waxa kaliya aniga xanuunkii u hayaa hadda waxay tahay saaxiibadii aan ka soo tagay oo connection aan u ahaa aniga studio-gaas aan sameeyay waxaan qarash geliyay $42,000 $42,000 damaanad u baahnaan lahaa inaan visa ku gato xataa visa Mareykan ku badan kari sax waan ku soo bixi karay adiga qaabkay noqotaba laakiin waxaan ka doorbiday inaan asxaabteyda u sameeyo meel ay isugu iman karaan qofka kaliya boqodish ka sameeyay aniga ahaa inaan guri kireeyo intaan ku guriga raagal lahaa saaxiibana inta salaam Ingiriisku joogaa oo ii ogolaaday in gurigiisa inaan qoraalka way yaraayeen inaan laba qol isku furo oo dhaxdana ka dumiyo sida inaan aniga leeyahay kaleete inaan guriga sharaxo inaan kaamirooyin Sony aan keeno in team aan keeno oo editing sameeynayo in computerkii aan soo gado oo kan gamerka lagu ciyaarayo in qolan studio aan sameeyo qof uusan geli karin qofku wax edit gareynayo oo kaliya in memory aan soo gado in 7 camera wax ka badan aan keeno in aan furo meel sawirada lagu qaado dadka isugu imaanayaan oo EDU kala sawir aan ku qaadi jiray oo dad badan aan isku baranay oo YouTube-ka iga taageeri jirayna ay igu support gareyn jireen wallahi lacag aad far badan ka shaqeeyay meeshaas oo sawirada lagu qaadayo studio-gii waa inta qolkana waxa ku dhagan meeshii sawirada lagu qaadayo markii qofkii oo imaad ani taageero wuxuu arkay dariskii taabo marshadiyo la kulma markabtan baaro la kulma asxaabtu wax soo sameyn jiray dadkii la kulmayeen qaarna waxay u imaan jireen sawir galaan qaarna waxay u soo bixi jireen sawirka ay u galayaan dadtoodana ay tahay in anagana si arkaan أنا واحد اسكو حيرانيت كولكشن وها كابتن باري إدريسكا صافي أنا ودا شقي جري باقولي بوي تيم اسكو حيرانا هين أنا يوتيوب كا وحن استعمالاي مدو لبا سنة استعمالاي سيد بقول كون أسبوع مرايو عن جوجي هذا هذا أنت صوص لو كنت أكون إسكا درس كنت شكرا كنت درسنتي حتى أنا بحوم سوقي هذا استيلو كو شقينا بقى استيلو شقينا يا حي سيدي وكو حيرانتا هاي بيرو بلعب ويكسر عددا سي دعوضو وحيابي هورد بدنا يسووا عدها المقالة هور أن دعونا وأسيق سوء عشنا أصحاب فرق بدنا كلها عالمك marka in lacag la tabco waxa ka fiican in bini aadanka la tabco wala hada wala maanta laakiin hada fiir maanta Germany jooga adiga guriga kugu imaanay wariyaha ila joogo aamiro kala ila joogo adiga maanta wadigu arti gaari awad ama gaari u baahna ku dhaw ii keenaysa lacag igu keenaysid waa saaxiibtinimadii connection-ka wax la maal gashado waxa weeye uu qaaliso waa bini aadanka waxa jirta maamaha Ingiriis oo tira your network is your net worth أنا ضدك عدلة هاي وأنت عدلة وحقوق قال سنة قف كسميني لكل تجربة لجونا بلا عن ضمبه الملك كاستمري والقوق حياة بابجي وحد عاد الشقة ما أنت ما مصومالي على كل ما أنا أقول له شيء كيسانية بيقول لي سناب شات كبابجي بنكار كي يوصل وياك تاجر هو وقف تلوي المجال ده كذا شيء بيجود وجعل معنا على كل ما مركب
marka aan wax ku aad wado u fiican in marka bulshada waxaan jeceshahay. aad ugu xumaaday connectionkii inuu meesha ka baxay intaasoo qarash waxaan u gelinayay in asxaabta ay helaan meel ay xor ku yihiin meel ay ku baashaali karaan PlayStation 5 aan keeno weliga aan ciyaarin intaas waxaan rabaa asxaabta inay imaadaan La haddii baashaalo. ay noqoto xataa midka aan YouTube ka duubeynin inuu PlayStation ku baashaalo in astaan receiverkeeda aan soo geliyo TV weyn inaan keeno ciyaarihii laga daawaday ciyaarihii laga daawado Madalladii anigoo laga Champions daawado. League jiro kaleete anigii Chelsea taageero waxaa laga yaabaa qof Manchester taageero Champions League ii imaado idho dhalada waa inay geysaan midku soo qabsana wuu geysana haddii saaxiibtinimo jira lahayn waxaan oo dhan ma jira lahayn marka soo tagitaanka aan kasoo tagay waxaan dib ugu shalaayaa asxaabtii markaan kasoo dhexbaxayo furfurmatay su-aashidii aan ku weydiinay waa sii gashay gudaheega oo ahayd maxaad ka waxa badan aad u xistay waa maxay wadankii inta badan aad nin ku horta soo Captain laabtay Bara nin aad waxa waaye wax xariiftami karo laakiin ninka aan xariiftami karin oo aan isdhaho balniyo soo bixitaankaaga ugu dhibaateeyey waa Idriski Itaabo Idriski Itaabo saaxadan YouTube-ka aniga soo dhexgeliyey asaga wuxuu iska halin dhismaha guryaha ka shaqeeyo oo ahaa waxaan arkay inuu talent leeyahay waa u wacay wuu ii imaaday YouTube-ka lacaga wax yar mar oo YouTube wax ka samayn jiray amarna mar hore AdSense-ga qofkii oo ku xirtay Belgium-ka wiil Belgium-ka joogo ahaa kulay ma aqaano dhintay inuu nool yahay wiilkii aan weynay si loo xaliyay lacagtaas aan waxaan u sameynay wiil Cabaas xaliyay la yiraahdo waa naga YouTube-ka noo hayay aan u sheegay wuu u xaliyay lacagtii u soo bixiyay marka uu lacagtii YouTube-ka u dhaw wuxuu dhahay saaxiib waxaan rabaa inaan sii shaqeysto waxaan ku soo dhawo waan dhahay sidii aan teamkii ku sameynay oo challenge-gii caaga oo dunidu dhan qabsaday aan ku keenay marka anaga waa iska shaqeysan jirnay oo team isku xiran waxaan ahayn aniga ii duub adigana aan ku duubo aniga waxa laga yaabaa sabtiyo kale 7 muuqaal in la sameeyo sabti ahad isniin talaada arbaco khamiis jimco aan soo gashto haddana sabtideeda markaa ku imaad habeen kasta aan la shaqeynaa ahad waxa loo shaqeynaa Captain Bara isniinta waxa loo shaqeynaa barbaarta media talaada waxa loo shaqeynaa Captain Bara shaadiyo kale soo kordhici jirtay oo habeenkaas oo kale qof leeyahay oo kale loo dhex gelin jiray timan kale ta iska imaan jireen nagu soo dhex jireen oo loo sameyn jiray munamiska gabrala ad tiim badan ku wada shaqeyn jireen macnaha markii laba lagu bilaabo 3 noqoto 4 5 6 7 ilaa 10 عملان قرني أو قف والبهبينكو إماضو waxa weeyaan dabeecadaha waxa kamid ah in laga dhex dareemi karayo qisooyinkaaga inaad tahay qof bulshada isku xiraya kulba meeshuu joogay wadankii markaa joogtay inaad studio samayso inaad qofka u ogolaato inuu isaguna guuleysto maantiisa duubo in maalinta kale la sameeyo wad organis gareyn karaysaaba laga dhex arkaya qurbaha maanta adigoo yimiday adigoo jid ku jira adigoo wali ah qof qaxootiya oo systemkaaga la daala dhacayo ayaa haddana waxa laga dhex dheeran karaya TikTok inaad bulshada isku xirayso qof Mareykanka jooga qof Sweden jooga qof maxay wadanka kula jooga Jarmalka in habeenkiisa uu camirayso adigoo garab istaagsan tahay halkee ku keenay karaysaa maxaad ka aragtay mise isku dareentay dabeecadda leedahay isku xirka isku xir hadii aadan lahayn runtii nolosha ma soconayso tusaale ahaan hadda Ruusiya markaan joogo kaleete meel wax lagu soo diro ma lahayn xawaalada ma jirin oo Soomaali lagu soo diri karo lacagta hadii xataa event telefonka lagu soo diro intaan bixin meel ka soo baxsan kara ma lahan wiil Norway joogo Abdinaasir Allaha wuxuu sameeyay wuxuu ii soo dhigay visa kaartiisa waxa lagu keenay Ruusiya wuxuu ii soo saaray DHL adiga ilaa 3 maalmood camal soo socotay kala guriga aan kirista asaga ku dhiibi jiray lacagta waa asaga xataa markii kaarka la ogaanayo oo darteed baxar ogala kaarkaas darteed ugu xiran yahay saaxiib waxaan ku leeyahay saaxiib jira tahay in kaar aniga darteed lagaaga xiran waa ka xumahay waxa la ogaaday kaarka in Ruusiya looga shaqeynayo la ogaa sababtoo aniga lacagta TikTok iga soo dhacdo in guriga waxa laga rabaa in mobilkooda laga rabaa guriga waxa laga rabaa wax walba guriga ku saabsan caafimaad hadii ay noqoto hadii waxbarasho noqoto aniga guriga aan joogo kiraan ku jiray marka dhalinyarada TikTok oo kale ta isagood gareynaysa habeen walba live soo geli jiray qof walba wuxuu arko ii soo diri jiray marka hadii intaas qof aan haysan lahayn way adkaan lahayd nolosheeda inay sii socoto marka dabeecadda wanaagsan ee qayb ka tahay mideeda kale wax ilaahay wato waxa aniga wata maaha marka live iska galo kale in 2,000 daawato marka wax soo dhigo in dadka ay daawadaan wax aniga aan kasbaday maaha waa wax ilaahay dadka qulubtooda iigu riday أنا بنادم هاي بنادم كانوا حوم ديري وحن سمين كرام مجرته لكن dadka ogyihiin maadaama anigu qof shaqeysan kara inaan ahayn ay ogyihiin maanta anigu kan ku jira dhulka iska keesoo wacaysa kana raba ii samay waxa laga yaabaa marxaladda igu ku fikiraya inaan ku jiro mid ka adag inaan ku jiro oo wataadkan baan aan maraayo adigana aad ogtahay marba inaan fiifaaiyo oo aad ay u adag tahay xaaladeeda haddana saasay tahayna dhowr cadeyntaada in qofka aad wax kaaga baxdo kala aad u samayso in qof walba soo dhaweysato oo qofkan ku duceeyo culayska aniga igama qaadi karaan iiga wax hadda isaaran adinka igama qaadi kartaan just kaliya inay ii duceeyaan qofka waxa uu rabo aan u sameeyo
oo ama snapchat ko kale igala soo hadlo dhosaan ii sameey kan ii sameey oo aan u sameeyo oo ii duceeyo waxa laga yaabaa ducadaas in wax un aan ku faa'iido meel ay iga soo baxdaa laga yaabaa marka isku xirkaas gurigay waa wadi jiray waana sii wadi doonaa haddana waxaan rajeynayaa haddii aan sharci helo way hadda qof weli kam ku jiraan ahay waxaan idinka codsanayaa inaad ii soo duceysaan in ilaahay ii fududeeyo waayo qurbaha dhibkiisa qof walba wuu dareemi karaa dadka lugaha leh aaba ka baxsan waayeen anigoo marxaladeeda saantaa laakiin aniga qalbigaygu wuu fiican yahay waayo dadka waxay dhahaan qalbiga waxaa laga noqdaa naafo lugaha ma aha sababtaan usoo dadaalay iyo keenta aan ugu soo dhaafay idinkana waa idin rajeynaa maalin inaad guulaysataan dhammaantood marka aan isku duceyno waxaan rajeynayaa haddii even ay ii hagaagto oo guri aan helo inaan youtube markaas bilaabi doono insha allah dib active u noqon doonto bulshada ku soo laami doonto sababtoo camera ma haysto meelaan guri aan wax ku habaystada ma haysto laakiin waxaan rabaa wax aniga oo ii qaas ah inaan helo kadibna aan hawsheeda gudaha kulay barnaamijka gudaha taaganahay waa maxay farqiga waxyaalo ka yaabiyay saddex shay oo ka yaabiyay qurbaan markaad imatay marka la barbar dhigo wadankeena Soomaaliya waa maxay weyn baabeeji ahaan marka tan la imatay sidii hore ka duwan ila yaabta maxaa kamid ah niyo waxa uma sadaka cimriga in loo soo quusay waqti ma hadda waa soo kacay musashan kale waa soo qabaystay way dugtay inta soo fadhiis isna baan duubay saacadan fiirija waqti baa habeen waayo waqti waa ku yaraa aniga habeen iyo maalin meesha waa kala saari lahaay talabaad oo ah haddii balan aan leedahay oo ay ka dhiman tahay tusaale ahaan 2 saacadood oo aad isku dayda balanta inaad aadid adigoo waqti ku galaabo adoo waqti ka dhinaana waa mid labaad aniga aan la yaabay baska aad sugaysid inta guriga soo bixis xasrada baska waxa ka dhiman 20 daqiiqo inta guriga soo bixis baska waa baxay bartu taagay waqtiga tagay waa baxay baha dadkan jarmalka la joogto waa maxay dabeecadahaas oran karayso waa jarmalka horta waxa laga sheegi jiray dad xun inay ku noolyihiin dadka mindigiliyo Soomaalida ani guri badan ma tahay dilay wacataan waxaan dhahaa dadan ka saan soo wadana dad aad mindiliska ginari shiiya laakiin waa been waa been aniga Frankfurt waa tagay dad badan aan ku soo arkay Düsseldorf waa tagay dad fara badan aan ku soo arkay Hamburg waa tan hadda aan joogaba Ishfirin waa meesha aniga aan ku noolaa Soomaali badan ay degan yihiin Berlin waan tagay Dortmund waan tagay oo asxaab fara badan aan ku soo arkay waxaas la sheegayo dadku way nagu dacaydeen haddii aan ayreer Deutschland dadka sida aniga kale dacayda naga daaya idin leeyahay anaga yana la dacaydeen wadankeena wuu fiican yahay qof walba saacadii ka dhigata waay haddii aniga aan ku arka adiga inaad xun tahay aniga waxaan iska dhiciyo waay haddaan ku arka adiga inaad wanaagsan tahay waxaan iska dhiciyo laakiin mar walba qofku waxa ka turjumi karo markaad la kulanto waxa weeyaan inta badan wax yar oo ma laga yaabaa qofka xun ma garanaysa inuu saameyn ku yeesho boqolaal qof maanta waxaan ma taqaanaa badda hal malaaya qormiyo marka hal malaayo qof midigiliyay jarmalka oo dhan qormiyo baa dhici karaysa wadarkaysa jarmalka inay ku soo dhaweeyeen xaflad lagu sameeyay dhalinta ka soo qayb galisay noloshada la qabsaday wadanka dhax kale guul ka gaaray way jiraan nolosha meesar ka gaaray waxa weeye xariijina insha Allah maadaama adugna halkaan nala imatay inaad Venus podcast-igana noqon doonto mid dardaaranka aan rabo inaan siiyo dhalinyarada waxay tahay inaan u baahanahay dhalinyaro ilaa 10 camal gaarayso oo aan wada shaqeyno oo cameraman leh editing leh oo YouTube ka wada shaqeyno oo team aan wada noqono aniga ma aqaan kaliya wax cun aan wada cunno waxa dhahayaa aqaanaa wadan qurux badan aan joognaa meel walba wax ku duuban karnaa iga leexa iyo inta ka imaaday ma jirto marka aan isku imaano teamka muhiim ay tahay in aan hal meel ka soo wada jeesano dadkana aan u muujino in isku xirnaashada meel walba ee laga sameyn karo ee ka jirto aad iyo aad meesha doonaan dhammaanteed caadiga ee jarmalka insha Allah wuxuu noqon doonaa Venus podcast aan dadka ugu iftiimin doono dee wixii jarmalka laga aaminsanaa ee ahayd inay dad midigelinaya yihiin dad nolosha ka dhacsanay yihiin inay jiraan dad nolosha meel ka gaaray dadkan la qaaday noloshooda caadiga ku nool dhaqankooda Soomaaliyeed haysta diintoodii haysta anaga muuqaalka xigo aniga oo luqtadii soo sameeyay inaad aragtaan hadda waxaan ku weydiinayaa qaybihii barafadka ee shakhsiyadaada ku saabsaneed waxa weeyaan dhalin badan oo waxa jirta maanta social media waa opportunity waa fursad banaan oo dadku ka shaqaysanayaan adduunka dad soo shaqo taga baa jira adigu maanta waxaad kamid tahay dadka fara ku tiriskeeda Soomaalida la yiraahdo social media la yiraahdo oo marka koowaad ka soo cayn baxay dhaqaalaha ka soo gala intuu leeyahay ma la wadaagi kartaa bulshada ha noqoto TikTok ha noqoto YouTube adii waxba gelin ha noqoto Facebook meelaha soo geyso social media ma tahay meel qofku noloshiisa ku noolaan karo waa lagu noolaan karaa wax aan wax laga soo saari karin ma jiraan isku dayga wuxuu ka fiican yahay isku day la'aanta qof kasta oo rajo leh
hamigiisa haddii uu ka dhabeeyo uu ku taagan yahay wuu gaarayaa. haddaba aan laxas waxaan arkay video oo 2021 aan duubaan dhahayo aniga Cabdifataax Shaadii qabo video duubeyne wuxuu leeyahay adiga Australia ku soo baxdo ilaa mayaan dhahay Australia ma jecli Jarmalkaan jeclahay 2021 ka ahayd yaa dadka hadda soo qaateen soo dhigeen markaas niyadeeda ku jirtay macnaha waxaan ku keenay wax walba oo qofka niyadiisa ku jiro oo raba in uu kamera dhaliyo inuu gaari karo. aniga YouTube waxaan isticmaalayay muddo 2 sano ah oo maleena inta soo bixin sanadkan oo soo socda iska dhaaf 2 sano isticmaalay 2 sano YouTube aniga waxaan ka sameeyay hada ku sheeg maaminaysid sheegna $123,000 ka sameeyay $123,000 ma ogtahay Jarmalka dadka caadiga shaqeeya intay sameeyaan dad ku sameeyay saas baa kugu dhici doona soo waan ka boodi doonaa insha Allah comment ku soo qoro waad garan kareysaan Jarmalka intay dhaqaale ahaan sameeyaan qof xirfad bartay oo shaqeeyay oo shahaada ma jaamacad ka soo baxay no kama badno comment inuu sheegi doonaa insha Allah way garanayaan nolosha caadiga marka ay ma sha Allah Allahumma barik laakiin TikTok waa haya ma tasma tasma TikTok okay waxa sameeyna hada number baan ku siinaa hada waxa oranaysa hoos ama sare baad oranaysa kadib meelaha u dhawaad 40,000 kor mise hoos kor 60,000 wili waa ka badan tahay 100,000 maybe meelahaas 140,000 hoos mise maybe adiga meelahaas sababtoo ah waxa waaye qofka asaga ku xiran tahay hadda aniga waxaan isku bedelay inaan gift dirabo awalna la isoo diri jiray maadaama Europe imaadeen dad hadda ku gaadhay hadda waxa ku sheegaa Australia guud waxa weeye kulli dadka Jarmalka waxaan ka sameeyay yaa la qabanin mini ma kaftana ka tahay insha Allah waxa weeye kulli opportunity ka social media aad buu badan yahay ama ka soo gal social media ka soo galo Facebook soo galo Instagram soo galo waxa weeye dadku dhalinyarada dhaqaalaha ay ka sameyn karayaan in aan disdigin maanta walaalkiin oo maskaxda ka caafimaad qaba hadal qurux badan buudi oo qof wax laga naafooba maskaxda laakiin jirka laga naafooba waxa ku tusaysaa maanta inuu waalid in ubadkiisa korsanayo noloshiisa oo arkayo oo dhalinyarta wadaago qof kasta oo garab istaag aabe imanolo walaal maanta ma jiro oo aan dhihi kara bal hadii even ay dhacdo inaan inta ka laabatid ku garab istaaga ma jiro Janice Kalmar ku soo baraa salaam waxa laga yaabaa markii aan studio-ga sameynayay dhaqaale TikTok iga soo galay inuu ahaa gabar SJ la dhaho ayaan halkan ugu mahadcelinayaa iyada u soo ahayd inaan dhaqaalahaas ka helo TikTok-ga marxaladeedana way ka warqabtay marka Janice-kaas isoo marayaan ka faa'iideystay inaan YouTube-ka iyo TikTok-ga aan isku wado oo studio-gaas aan sameysto hadda waa laabanaa hadii aan dhaho ma weynay qarasho ku sameeyay laakiin meeshii kale inaan ka sii bilaabo iyo intii qof inaan soo keeno way adkaanaysaa technology sababtoo ah noloshii iyo sababtaad uga soo baxday oo taala meeshii wali taala ka ahaan lahaa isku daygas ma sameeyeen meeqa xay ah oo lagu qaba maanta oo wax fiican inay sameeyaan lagu kareenin adi aad waxa weeyaan marka horta in dhalinyarta inay steam whatever wax meesha joogto inay jirto meel ka sareysa waxa rajaynayaan meel ka qurux badan gaari doonto inaad dhamaan aad noqon doonto kaliya Soomaalida aad entertainment u sameeyay laakiin dadka af Jarmalka aad sameeyay doonto af Jarmalka imka baratay ereyada kugu aad isticmaasho waxa kamid ah dhalinta ku salaan in aad erga ugu dambeeya salaanto kaleete good morning good abi garab wanaagsan waay taas ay qabsanayna good dhaqtan haween wanaagsan waay fi gadis diya hay sida tahay waay miya gadis good waa fiicanahay taanki shoon shoonkii ma ya taanki shoon salaam way ka qurux badan tahay ya qurux badan tahay waa qurux badan tahay dhahay shoon shoon bislamiya shoon maana shoon qurux badan tahay Soomaal maxay Jarmal waa inoo qurux marka erey waxaan ka saayay waa ku jeclahay wax Jarmal camal ka saayay isliib disha sasoo ahaa marina ka ereydiisa wad baranaysaa afka luqadiisa aniga wada hadda ayn soo kaleete eber ma ho tasbiya shoon halwa hal miya aynis isfa taqay firf miya funf six seven acht 9 sin Soomaal waxa uu dhigtaa كولوز عفرشان يحتوزيس كنتم وينو ورس لغدي والله قبسته marka odaygu wada arkaysa ma dhow waxa weeyaan oo badan of Jarmal kusoo jeedin doonta aad baad ugu mahadsantahay babaji sharaf leeyahay ka soo qayb insha Allah muuqaalkan iyo muuqaal kale kulli insha Allah barnaamijyada badan baan soo wadi doonaa waxa weeyaan odayga Hamburg uu soo degaya qaybtan Nord waxaan maanta wani kooda hadlaynay in ay noqon doonto satarka dhan ee social media-ga Soomaalida insha Allah ka soo wadaagno qof walba oo imaan doona xataa halkan ay ku soo dhaweyn doonaa center halka ka dhigan doonaa halkan oo kaliya ma aha jaranji fara badan oo soo socdaan
كاميرون فربنا ودد قصو جران حواي يوتيوبر بدنا اسكو إيمان دونان وحيو فربنا أركي دوتين أدو مثلا سيدة فرصة بكون هاد علنا هذه كمان